السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى next night iyo seminaarkeeni oo ku wajahna how to prepare research proposal. Marka insha Allah ta'ala waxaan diiradda saari doonaa waa maalinta labaad. Waxaan diiradda saaraynaa haddii Ilaahay yiraahdo amaba seminaarkeena uu ku wajahan yahay general structure of research proposal, qaab dhismeedka guud proposalka cilmi baarista. Waxaan horay u soo aragnay habeenka koowaad ama maalinta koowaad sida topiga loo doorto, kadibna shuruucdii iyo markaasi waxyaabaha la iska rabay oo waajibaad ahaayeen dhammaan waa soo aragnay. Marka hadda waxaan fiirinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo oo markaasi xoogga aan saari doonaa qaab dhismeedka guud proposalka cilmi baarista. Marka proposalka qaabka loo diyaariyo iyo contentskiisa mid mid ayaan u dul istaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah. waayahay haddaba ajandayada ama qodobada aan xoogga saari doono waxaa ka mid ah kow chapter 1 oo introduction la yiraahdo, qaabkiisa iyo nidaamkiisa iyo qaab dhismeedkiisa ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa chapterka labaad ee proposalka oo loo yaqaano literature review. asagana waan dul istaagi doonaa, si fiican ayaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo chapterka saddexaad ee proposalka oo loo yaqaano methodology. asagana sidoo kale waa chapter aad muhiim u ah, marka waan dul istaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka saddexdan chapter ayaa ugu weyn haddii saddexdan chapter isku xiran oo isku xirkoodii iyo ayaa waxaa loo yaqaanaa proposal. marka sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo referencega qaabka markaas uu noqonayo, laakiin qaybta referencega waa hadda hal maalin ay qaadanaysaa. waa qodobada meesha noogu jiray ayuu ka mid yahay 4 habeen. marka waa habeenka saddexaad. cashirkan waa midka kale ku xiga weeyaan referencega haddii Ilaahay yiraahdo, asagana waan ka hadli doonaa. sidoo kale proposalka waxaa soo wehelinayo qayb yar oo loo yaqaano appendices, waa lifaaqyadii. okay, marka appendixyada markaad diyaarinaysid ama appendix waa jamca marka laga dhigo, dee waxaa hoos imaanayo questionnaire-kii ayaa hoos imaanayo. sidoo kale waxaa hoos imaanayo budgetkii iyo time frame-kii ayaa hoos imaanayo, iyo haddii markaasi dee researcherka waxyaabo kale hadduu heli karo. marka intaan isku xirkooda waxaa la yiraahdaa appendix la yiraahdaa. marka haddii qaybtan oo dhan appendix la yiraahdaa, waliba waxaa jirto qayb kale oo chapter 1ka intuusan bilaabanin ka horeysaa jirto oo loo yaqaano preliminary pages loo yaqaanaa, oo ay ka mid yihiin sida approval page-kiya ka mid ah, waxaa ka mid ah dedication page-kiya ka mid ah, waxaa ka mid ah acknowledgement-kiya ka mid ah, waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa list of tables, list of figures, and list of abbreviation or acronymic oo loo yaqaano ayaa ka mid ah, iyo abstractigi iyo intaas dhan hoos imaanayaan, iyo table of contentski oo dhan ayaa hoos imaanayaan. marka qaybtaas iyo qaybahan isku darkooda waxaa la yiraahdaa ayagoo isku xiran proposal la yiraahdaa. okay, marka sida caadiga guud ahaan buugan ama proposalka ama thesis-ka aan dhahne dee wuxuu u qaybsamayaa sida caadiga 3 qaybood ayuu u qaybsamayaa. qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa preliminary pages, qaybta labaad waxaa la yiraahdaa text body la yiraahdaa ama main body, qaybta kalena waxaa la yiraahdaa appendix la yiraahdaa. marka saddexdan qaybood ayuu u qaybsamayaa buuga proposalka. marka just buugaaga waa in laga helaa preliminary pages, body text iyo maxaa la yiraahdaa appendix, waa in laga helaa buugaaga. okay, waayahay marka saddexdaas isku xiran ama saddexdaas qaybood hadda aan tilmaanay isku xiran ayaa marka proposal ku noqonayo oo ay ugu waaweyn yihiin
saddexda chapter oo chapter 1 loo yaqaano introduction, chapterka labaad loo yaqaano literature review, chapterka saddexaad loo yaqaano methodology. marka insha Allah ta'ala intaan ayaa caawa ku cover gareynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo seminaarkeen. waayahay haddaba su'aasha meesha taalo waxa weeyaan oo meesha ugu weyn waxa weeyaan what is research proposal? What is research proposal? Research proposal maxaa la yiraahdaa? waa maxaa yeelay waxa laga hadlayo waa proposal soo maaha. haddaba waxa weeyaan oo isweydiin mudan what is research proposal? Research proposal maxaa la yiraahdaa? waayahay haddaba aan fiirino qodobka koowaad wuxuu leeyahay research proposal is a document that provides a detailed description of the intended program. Okay? Research proposal ku waa document taasoo markaa bixinayso detailed description, yani macluumaad qeexan ay bixinaysaa of intended your program oo programkaaga macnaha oo ku wajahan ay bixinaysaa. macnaha waxay bixinaysaa faalo ama information badan oo la qorayo oo waliba qeexayaan yani programkaaga ka hadlayaan your program. kaas ayaa waxaa la yiraahdaa research proposal la yiraahdaa. qodobka labaad xigo marka maadaama research proposalka waxa uu yahay aan fahanay oo aan dhahnay proposalka waa document cadeynayo ama sa bixinayo yani detailed description, yani macluumaad sharaxaad badan uu ka bixinayo program uu yahay macnaha programkaaga, nidaamka loo diyaarinayo, waxa aad rajaynaysid iyo waxa la qorayo iyo yani maxaa la yiraahdaa waxyaabaha aad samayn doontid iyo wax noocaas oo dhan waxaa la yiraahdaa waa detailed. okay? waa information. waayahay intaas kadib why sababta loo sameynayo ama ujeedada loo qorayo proposalka maxay tahay? okay? ujeedada loo qorayo proposalka muxuu yahay? waayahay the objective in written a proposal, yani ujeedada loo qorayo proposalka waxa weeye is to describe, in la qeexo, la sharxo, la sheego what you will do, waxa aad samayn doontid. okay? macnaha proposal markaad qoraysid dee wax kale ma ahan waxa weeyaan sababta loo qorayo wax kale ma ahane sababta loo qorayo waxa weeyaan what you will do, maxaad samayn doontaa, waxa aad samayn doontid inaad sheegtid. okay? sidoo kale why it should be done. okay? why sababta waxaan loo samaynayo maxay yihiin? okay? for example waxaad sheegtay waxa aad qabanaysid sooma waxaan iyo waxaan samaynayaa dhahday why maxaad u samaynaysaa? okay? how you will do it, sidee loo sameeyaa marka waxaan aad qabanaysid oo aad dhahday waxaan iyo waxaan samaynayaa haddaba dee sidee ayaad u qabanaysaa marka? okay? sidoo kale waxaa isweydiin ah marka ujeedada afraad oo loo sameynayo proposalka loo qorayo waxa weeyaan what you expect will result, yani resultiga hadhow kaaga soo bixi doono waxaan maxay noqon doonaan, maxay yihiin. marka intaas ayaa loo qabanayaa proposalka. waayahay haddaba a good proposal should consist of the first 3 chapters of the thesis it should be begin with. okay? wuxuu leeyahay marka proposalka wanaagsan should consist, waa inuu ka koobnaadaa. macnaha proposalka sidiisuba waa inuu lahaadaa ama uu ka koobnaadaa 3 chapters, 3 chapter ayaa ugu horeyso inuu lahaado. okay? marka saddexdaas chapter marka waxa ugu horeeyo uu ka bilaabanayo waa
introduction waa jabtarka koowaad oo markaad joogtid proposalkaaga waa yahay jabtarka labaad wuxuu noqonayaa a review of literature yani wixii markaas qoraaladii hore loo sameeyay inaad markaa dib u eegis inaad samaysid waxaana loo yaqaanaa literature review ayaa loo yaqaanaa waana jabtarka labaad okay jabtarka saddexaad wuxuu noqonayaa research methodology ama methods waa jabtarka saddexaad yani markaasi waxyaabaha aad u baahan tahay methodska aad u baahan tahay oo si aad markaa programkaaga u xalisid iyo noocaas ayaa looga hadlayaa jabtarka saddexaad waana methodology ayaa la yiraahdaa waa yahay marka saddexdan jabtar waxaa soo wehelinaya marka referenceska yani meelaha aad ka soo xigatay qoraalada aad samaysay iyo baragraafyada meelaha aad ka keentay iyo referencegooda ayaa hoos imaanayo sidoo kale waxaa lagu dari karaa appendicesyadii iyo maxaa la yiraahdaa sida yani questionnaire-kii budgetkii iyo time frame-kii intaan oo dhan isku xiran ayaa waxaa loo yaqaanaa proposal ayaa loo yaqaanaa waayahay mid ayaan u qaadanaynaa marka qayb walbo introduction-ka aadi doonaa qaabka loo qorayo nidaamkii iyo waxa sida ay noqon doonaan haddii ilaa yiraahdo jabtarka labaada aadayna literature review-ga qaabka loo qorayo iyo nidaamkiisa intaba waa arki doonaa sidoo kale jabtarka saddexaad ayaan aadi doonaa haddii ilaa yiraahdo qaybta methodology-ga qaabka loo qorayo nidaamkiisa iyo waxyaabaha markaasi la iska rabo loo baahan yahay dhammaan waan arki doonaa referenceska iyo appendicesyadii iyo kuwaasna waa ka hadli doonaa okay waayahay su'aal kala timid oo ah what is dissertation maxaa la yiraahdaa oo thesis okay thesis or dissertation okay maxaa la yiraahdaa dissertation or thesis is a long piece of academic writing based on original research submitted as part of an undergraduate or postgraduate degree. Why? wuxuu leeyahay qaybtan dissertation horta sida caadiga hadaan yani si guud ahaan hadaa u sharxo dissertation waxaa la yiraahdaa waa buugga qalinjebinta markaad qalinjebinaysid weeyaan waa markaa buuggaagu isku xiran oo wax badan la qoraayo oo 5 jabtar la qoraayo oo isku xiran oo hadhow jaamacadaada hadaad tahay yani undergraduate ama postgraduate aad tahay ka qalinjebinaysid weeyaan oo jaamacada uga bixaysid kaas ayaa waxaa la yiraahdaa dissertation ayaa la yiraahdaa waa long piece of academic writing waa gabal dheer oo qoraal oo yani qoran weeyaan oo waliba academic writing ah yani qoraal cilmiyeed ku saabsan weeyaan oo ujeedkiisu yahay ama asal u ah research cilmi baarista ay asal u tahay kaasa waxaa la yiraahdaa dissertation la yiraahdaa okay waa yahay haddaba marka shaxdan ila fiiri waxay leedahay ama table-kan proposal and dissertation waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ayaa halkan noogu qoran proposal what is the difference between proposal and dissertation and proposal difference-ga ama farqiga u dhaxeeyo muxuu noqon karaa faraqa waxa weeyaan proposalka 3 jabtar ayuu ka kooban yahay proposal is 3 chapters laakiin dissertation-ka muxuu ka kooban yahay waa 5 chapters 5 chapter ayuu ka kooban yahay marka soo difference maaha kanna 3 uu ka kooban yahay kanna waxaa lagu sheegay inuu 5 ka kooban yahay marka 3 iyo 5 day way kala duwan yihiin soo maaha waa farqiga u dhaxeeya marka proposalka iyo dissertation-ka okay macnaha kan 3 maxaa ka dhigay kanna maxaa 5 ka dhigay proposalka 3 waxaa ka dhigayo wuxuu leeyahay introduction haddaan soo sheegay introduction literature review iyo methodology saddexdaas isku xiran waxaa la yiraahdaa proposal warkaas uu cad yahay soo maaha
haye waxaad imaataa marka dissertation-ka imaw dissertation-ka waxaan kuu sheegay 5 chapter inuu ka kooban yahay maxay kala yihiin marka waayahay chapter 1 oo ah introduction chapter-ka labaad oo literature review ah chapter-ka saddexaad oo ah methodology okay waayahay chapter-ka afraad wuxuu noqonayaa marka findings ama result okay findings ama result la yiraahdaa waayahay chapter-ka shanaad oo ah conclusion and recommendation marka sidaas ay waxay ku noqonayaan 5 chapter ay noqonayaan marka waayahay marka su'aal meesha waxa taalo 3 chapter proposal ayaan diyaarinayaa kadibna 5 kale ma diyaarinayaana waa su'aal xaqiiqdi marka 8 chapter ay noqonayaan soo maaha marka sax ma aha saddexdaadi chapter hore oo proposal-kaaga ah ayaa waxa loo bedelayaa kaliya macna 3 chapter hore wayba ku diyaarsanayeen soo maaha kadib markaad difaacato proposal-kaaga iyo markaad difaacato kadib waxa sameynaysaa data collection-ki iyo questionnaire-ki iyo waxa markaad sameeysid chapter 4 aa qoranaysaa chapter 5 aa qoraysaa marka 2 chapter way ku diyaarsan yihiin already saddexna hore ay kugu diyaarsanayeen marka kuwa marka saddexdii chapter hore oo ay u qornaayeen future macna proposal future loo qorayaa soo maaha marka saddexdaas chapter waxa loo bedelayaa past kadibna labadan chapter dambe oo past u qornaayeen ayaa la isku darayaa marka sidaas waxay ku noqonayaan 3 chapter waayahay ma jira wax kale kala duwanaansho kale ma jirtaa ha wax kale kala duwan yihiin okay proposal-ka يعني marka la qorayo maxaa la isticmaalayaa dissertation-kana marka la qorayo maxaa la isticmaalayaa macnaha qaab noocee ayaan u hadlayaan u qorayaa qoraalkaygu muxuu noqonayaa proposal markaad joogtid written in future tense proposal-ka waxaa loo qorayaa future ahaan ayaa loo qorayaa mustaqbal waxa soo socdo ama waxa aad qaban doontid inaad ka hadashid weeyaan oo aad dhahdo waxaan qaban doonaa waxaan isticmaali doonaa oo inaad dhahdaa loo baahan yahay ayadoo markaas la isticmaalayo sida will okay for example inaad dhahdo the researcher ama the study will conducted okay the study will be used ma fahmaysaa marka inaad sidaas oo kala dhahdo the researcher will use questionnaire for example questionnaire ayuu isticmaali doonaa yani researcherka ama study daraasada waxay isticmaali doontaa questionnaire macnaha warkaasi wuxuu u qoran yahay future ahaan Soomaha waa sida loogu talagalay proposalka in loo qoro waayahay waxaad imaataa marka dissertation-ka waxaa la isticmaalayaa past tense ayaa la isticmaalayaa past ayaa la isticmaalayaa past tense tusaale ahaan markaad isticmaalaysid waxaad isticmaashaa marka was ama were ayaad isticmaalaysaa okay for example hore waxaan u soo sheegnay inuu dhahay researcherka for example the study will use questionnaire fahmaysaa the study will use questionnaire waa markaan proposalka joogo waa laakiin dissertation-ka markaan taaganahay ama joogo ama qorayo waxaan leeyahay the study was used fahmaysaa the study was used saasaan leeyahay daraasadda waxay isticmaali doontaa iyo daraasadda waxay isticmaashay waa okay kala duwanaansho kale ma jira yes haye goormee la qoraya proposalka xiliga la qorayo proposalka iyo xiliga la qorayo dissertation-ka aragno written before going to the field proposalka waxaa la qorayaa before going to the field fieldiga inta aadan aadin fieldiga yani xaggiisa aadan aadin ayaa waxaa la diyaarsanayaa proposalkaaga okay proposalka waxaa la qorayaa
adoo gurigaaga iska dhex jooga xafiiskaaga fadhisid iskuulkaaga joogtid ayaad qoranaysaa proposalkaaga ma u baahnid markaan proposalka markaad joogtid uma baahnid inaad markaas fildiga iyo meelahaas inaad booqato iyo booqasho way dhici kartaa marmar qaar inaad aadid waa suuragal oo xogaa yar information yar inaad ugu baahan tahay laakiin sida guud ahaan proposalka adoo gurigaaga jooga qoranaysaa ustaad maxaa yeelay waa future waxaan qaban doonaa waxaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa it is future okay laakiin dissertation-ka goormee la qorayaa dissertation waxaa la qorayaa written after coming from the field fieldiga markaad ka soo laabato okay fieldigaaga oo case study-ga ku yahay ama area-da aad isticmaalaysid ama maxaa la yiraahdaa population-ka aad isticmaalaysid markaad ka soo laabato gurigaaga markaad imaato oo dib ugu soo laabato fieldiga markaas la qorayaa wax la yiraahdo dissertation okay dissertation xiligaas la diyaarinaya so marka waxyaabihii markaas fieldiga soo aragtay iyo xogtaada markaad aruursato kadib wixii aad ka hadlaysaa marka so waxaan filayaa in la fahmay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin proposalka iyo dissertation-ka inaad fahanteen aan rajaynaya waa yahay next structure of chapter 1 chapter 1 qaab dhismeedkiisa marka chapter 1 markaad dhisaysid adaan kula hadlayaa ustaad oo baxtiga samaynayo chapter 1 markaad qoraysid diyaarinaysid contentska markaas loo baahan yahay waa kuwan way dhici kartaa hadda waxaa noo qoran ilaa iyo 8 qodob noo qoran waa laga yaabaa jaamacadaha qaar 4 ama 7 ama 6 iyo wax noocaas inay soo qaataan ayagoo waxyaabo qaar ka bixir way dhici kartaa okay and for example researcher-ka markuu qoraayo proposalkiisa markuu qoraayo waxa loo baahan yahay number 1 marka ugu horeyso inuu ka bilaabo maxaa la yiraahdaa 1.0 macnaheedu waxa weeyaan introduction-ka inuu qoro okay introduction-ka inuu qoro de ardayga introduction-ka yani 1.0 so waajib miya mas waajib ma aha de waajib ma aha uu ka tagi karaa ardayga hadduu doono iskaga tagi karaa dhib ma laha wuxuu ka bilaabayaa 1.1 oo ah background halkaas ayuu ka bilaabi karaa laakiin haddii loo baahdana de waa lagu dari karaa okay haddii loo baahdo waa lagu dari karaa asaga de hadda waa iska overview laakiin shaqadii guud ma ahan de shaqada inta la qaban ka hor waxa aad qabanaysid iyo ayaad sheegaysaa bis okay ka waxa weeyaan marka introduction la yiraahdaa waana 1.0 ayaa looga hadlayaa sidoo kale chapter 1 wuxuu ka koobnaanayaa ama contentgiisa labaad wuxuu noqonayaa 1.1 oo ah background of the study okay background of the study maxaa la yiraahdaa marka background of the study waxa weeyaan daraasadda waxa aad daraasaynaysid background-geeda inaad ka sheekaysid yani history-geeda inaad ka sheekayso okay history yani topic-gaaga history-giisa inaad ka sheekayso ayaa loo baahan yahay markaan oo kale okay for example markaan dhahno tusaale ahaan haddaan usoo qaato de motivation-ka oo kale tusaale ahaan haddaan usoo qaato motivation waa taqaaniin soo maaha waa dhiirigelin okay marka motivation-ka oo kale waxaad leedahay for example history ma leeyahay caalamka sidee wax u dhiirigeli jireen Africa oo kale sidee wax u dhiirigeli jirtay Soomaaliya sidee ayay shaqaalaheeda u dhiirigelinayaan wax noocaas inaad baarbaartid yani dhiirigelin yani background-geeda inaad baarbaartid wax badan ka ogaato kadibna aad qortid marka waxa la yiraahdaa background of the study qaabka loo diyaarinayo waa arki doonaa iyo shuruudaha iyo waxyaabaha markaasi loo baahan yahay dhammaan waa arki doonaa you will see it insha Allah okay 1.2 ayuu leeyahay oo ah problem statement maxaa la yiraahdaa waa statement markaasi cadeynayo your problemkaaga yani statement markaasi ku cadeynaysid weeyaan
okay qaabka loo qorayo nidaamkii iyo shuruudaha iyo waxyaabaha loo baahan yahay waan tagi doonaa insha Allah waayahay 1.4 waxa weeyaan research 1.3 oo ah research objectives 1.3 waa research objectives yani cilmi baarista aad sameynaysid ujeedadeeda maxay tahay marka ujeedadeeda maxaa weeyaan maxay yihiin ujeedada waxaan sababta aad u qabanaysid shaqadan sababta aad u qabanaysid maxay tahay ujeedadii waa inaad cadeysaa marka ujeedadeedu waxaan rabaa kan inaan sameeyo kan iyo kan macnaha waa ujeedadii Soomaha marka ujeedadaada cadeey clear your objective okay then 1.4 research questions haye cilmi baaristaada su'aalaheeda markaan waa inaad diyaarsataa okay ayaga waxay ka imaanayaan objectiveyadii waa arki doonaa qaabka la sameynayo okay 1.5 scope of the study yani xindaabka ama scope-ka yani waa border Soomaa yani xuduudka markaas ama xadka uu gaari karo cilmi baarista aad sameynaysid yani cilmi baarista aad sameynaysid fildigeeda kaliya inuu ku ekaado ama fildiyaal kale inuu gaaro marka scope-ka inaad xad u samaysid waa muhiim waa arki doonaa okay waa yahay 1.6 significance of the study la yiraahdaa significance of the study maxaa la yiraahdaa yaa ka faa'iideysanayo programka aad sameynaysid yani projectiga aad sameynaysid cidda ka faa'iideyso waa inaad sheegtaa okay maxaa laga faa'iidayaa inaad tilmaantid weeyaan 1.7 operational definitions of the study okay marka keywordiyada markaasi uu yeelanayo maxaa la yiraahdaa daraasadaada cilmiga ah inaad marka keywordiyada inaad sharaxdo qeexitaanadooda iyo wax noocaas waxaa la yiraahdaa operational definition of the study loo yaqaan 1.7 conceptual framework waa the framework ama shax markaasi muujinayso yani conceptiga guud cilmiga waxa aad baarbaaraysid yani sabir yar ayaad ku muujinaysaa marka chapter 1 intaan ayaa looga hadlayaa sidoo kale chapterka labaad waxaa la yiraahdaa literature review markaad taagan tahay ama joogtid ama aad diyaarsanaysid qoraysid maxaa loo baahan yahay marka contentska loo baahan yahay maxay yihiin halkan waxaa ku qoran ilaa iyo 5 contents ayaa noo qoran okay ilaa iyo 5 contents ayaa noo qoran marka 5tan ma laga badin karaa mise waa laga yaray karaa waa horta su'aal muhiim ah okay sida caadiga literature review-ga horta ardayga iska leh waxa iska leh ardayga iska leh wuu ka badin karaa wuuna ka yarayn karaa qodobkaas inaad fahanteen aan rajaynayaa sidoo kale waxaa su'aal ah marka contents-yadan oo sidaan ah miyaan u qorayaa mise wax kalaan qorayaa ayadana taas waa su'aal muhiim ah laakiin inta ugu badan intaana la qorayaa inta ugu badan waxa noo qoran waa intaan waa yahay maxaa la qorayaa marka 2.0 waxaa looga hadlayaa waxa la yiraahdo introduction 2.1 waxaa la qorayaa yani concept iyo IV-ga yani conceptigiisa iyo qeexitaanadiisa inaad muujiso 2.2 waxaa laga hadlayaa concept of your DV IV iyo DV inaad fahmaysaa rajaynaya IV-ga waa topic-ga laga hadlayaa markaan topic-ga wuxuu yeelanayaa Soomaha IV iyo DV uu yeelanayaa marka IV-ga kaligiisa inaad ka hadashid DV-gana inaad si gaar ah inaad uga hadasho ka waxaa la yiraahdaa marka concept your IV oo DV waa yahay kadib maxaa la sameynayaa marka kadib waxaa la keenayaa objective-yadii la keenayaa marka adoo markaasi fiirinayo waxyaabaha markaas la xiriiro oo topic ama your objectives-yadaada waxyaabaha related-ka la ah ama loo yaqaano empirical study-ga ayaad markaasi inaad raadsid weeyaan okay sidiisuba literature review maxaa la yiraahdaa literature review sidiisuba waxaa la yiraahdaa inaad dib u eegis inaad ku samaysid waxyaabihii markaasi laga qoray topic-gaaga oo ay kamid yihiin article-ladii
oo ay ka mid yihiin buugaagtii horey loo qoray oo ay ka mid yihiin government publications oo ay ka mid yihiin government maxaa la yiraahdaa NGOs-ki yani ama organizational reports-ki oo markaas waxyaabaha ay xogtii ay aruuriyeen oo ay qoreen inaad wax ka soo qaadato sida yani World Bank oo kale waxyaabaha qorqoray inaad wax ka soo qaadato sida yani FAO oo kale hay'adda FAO loo yaqaano inaad yani xogtii markaas ayada diiwaan gelisay inaad wax ka soo qaadato laakiin miskiga soo qaadanaya meel walba wax leeman ka soo qaadanaya may haddii markaasi topigaag yani la xiriiro yani xog markaasi oo World Bankiga aruuriyay oo ganacsiga iyo yani bangiyadii iyo wax noocaas markuu ka hadlaayo iyo wax noocaasi markaad adii oo yani ka hadlaysid yani bank and finance iyo wax noocaas markaad tahay oo kale dhinacaasina wax ka raadisid haddii markaasi agriculture iyo beero iyo wax noocaas markaad ka hadlaysid sida yani NGO-yada oo kale sida yani FAO iyo wax noocaas inaad wax ka soo qaadato okay wax problem ah malaha waayahay marka kuwaas ayaad isticmaalaysaa soo marka haddii IV-gaaga conceptigiisa qortay DV-ga conceptigiisa qortay waxa kuu soo haraya marka waa objective-yadii marka objective-yadaada oo chapter 1 ka ahaayeen inaad soo qaadatid mid inaad markaa u sharaxdo oo markaasi conceptigiisa inaad qorto okay kadib waxaad qoraysaa gaababka markaasi jiraan 2.4 yani gaababka markaasi jiraan maxaa yeelay cilmi baarista sideedaba gaab ayaa jiro yani cilmi baaris ama dhamaatay ma jiro caalamka okay topigan maanta ma la dhihi karo cid dhihi karta ma laha topigan cilmi baaristiisu way dhamaatay markaan way xirantay caalamka oo dhan ma qaadan karaan cilmi baaristiisu way dhamaatay wax la yiraahdo ma jiraan ustaad okay haddii for example haddii ardaygan hadduu qaato arday kale oo jaamacado kale dhiganayo waa loo ogol yahay haddii kan qaato mid kale iska sii qaadanayo jaamacad kale iska sii qaadanayso mar walba way soconaysaa macnaa gaabab baa jiro gaabab waxaa la yiraahdaa waxyaabo markaasi adig gaari karin waxyaabaha adig ka tagtay oo kale in yani researcher kale inuu marka waxyaabihii kale inuu ku sii daro hore u sii wado adna wax kale ka sii tagaysa mid kale ay dhameysanahay marka gaababkii in yani researcherka markaas buuxiyo ma buuxin kare laakiin uu sii dhaweynaya marka gaababka markaas jiro inaad ka hadasho kadibna 2.5 summary ayaa sameynaysaa khulaasadii guud chapterka inaad u sameyso wax la yiraahdo chapter summary waayahay sidoo kale chapterka saddexaad ama cutubka saddexaad waxa idin sheegay in looga hadla doono wax la yiraahdo methodology ayaa looga hadlayaa methodology-ga markaad qoraysid ama markaad diyaarinaysid proposalkaaga gaar ahaan qaybta chapterka saddexaad oo proposalka markaad qoraysid oo kale maxaa laga rabaa oo contents ah contents-yada laga rabo waxa kamid ah sida 3.1 oo 3.0 halkan waa 3.0 waxa weeyaan introduction 3.1 ayaa waxa noqonayo research design-ka aad isticmaalaysid inkastoo designada ay badan yihiin oo macnaa ilaa iyo maxaa la yiraahdaa 4 gaarayaan okay qof macnaa markaas design-ka markaas isticmaalayo ayuu iska soo qaadanayaa sida waxa kamid ah correlation-ka kamid ah waxa kamid ah cross sectional-ka kamid ah waxa kamid ah experimental-ka kamid ah way badan yihiin ustaad marka mid inaad qaadatid ama laba xab inaad qaadato waa hada wax problem ah malaha waayahay laakiin waxa fiican hal design inaad qaadato hada for example fiiri hadaad dhahdo gurigan dhisaya okay gurigan dhisaya ilaa iyo intaas design ayaan ku qurxinaya hadaad dhahdo ogow wax fiican ma soo baxayaan ogow wax xun ama wax qaldan baa soo baxayo ma fahanteen marka sidaas daraadeed waxa haboon hal design ama hadii laga maarmo waayo laba design inaad isku darsato si xoga wixii u qurux badnaadaan halkuba waa qurxoon yahay ustaad halka iska qaado insha Allah waayahay 3.4 waa sample size and 3.4 waxa weeyaan target population
target population maxaa la yiraahdaa target population waxaa la yiraahdaa researcherku wuxuu isticmaalayaa fildiga soo maaha fildiga ayuu isticmaali doonaa marka researcherka maadaama fildiga isticmaalayo haddaba ogow fildiga waxaa joogo dadka fildiga joogo kuu soo jawaabaya oo su'aalahaaga ka jawaabayaan oo questionnaire-ka u qaybinaysid ayaa waxaa la yiraahdaa target population inkastoo population-ka si guud ahaan oo kala qaybsamayaan okay sida hadda waxaan u qaybin karnaa yani waxa la yiraahdo total population okay total population waa population-ka guud hadda in Somalia for example Somalia total population-keeda meequu gaari karaa 20 ilaa 30 oo u dhaxeeya Soomaha intaas milyan ayuu u dhaxeeyaa macnaha okay ka waxa la yiraahdaa total population la yiraahdaa waxa jiro marka target dadkaas totalkaas wax markaas focuska la saaraya jiro oo loo yaqaano target population intaas oo dhan researcher focuskiisa ma saari karo maxaa yeelay 20 milyan ilaa hatta 2,000 ama 5,000 aba tabar u heli karin Soomaha 20 milyan iska dhaafe marka researcherka wuxuu xooga saarayaa diiradda saarayaa focuska saarayaa target population dad yar oo markaas asaga taag gareynayo okay oo u dhaxeeyaan 100 ilaa 1,000 wareed ahaan okay 100 ilaa 1,000 ama ay u dhaxeeyaan 100 ilaa 1,000 respondents ama loo qaadanaya marka ma fahanteen target population ahaan uu isticmaalaya so marka haddana kunkaasi ama target population kaasi oo researcherka dooranayo uu ka dhex dooranayo yani ummadan oo dhan oo intaas milyan ka gaarayaan uu ka dhex doortay wuxuu ka sii dhex xulanayaa haddana wax la yiraahdo sample size ayuu ka sii dhex xulanayaa waaye sample size oo ka dhex xulanayaa marka sample size ka xagee ka yimaadaa marka xagoo meesha uu ka imaanayo sample size waa xagee wuxuu ka imaanayaa target population ka dhexdii ayuu ka dhex qaadanayaa marka waaye sidee u qaadanayaa ayadu waa baab kale waa waxyaabo badan oo markaasi isticmaalaya jiro kaas waa another issue markaan ka hadlaynaa inuu isticmaalo formulooyin badan inuu isticmaalo uu ka soo dhex saarto yani sambalka markaas loo baahan yahay sambalka markaas asaga u baahan yahay inuu ka soo dhex saarto ka marka waa another issue waa ka hadla doonaa waayahay 3.5 waa sample procedure oo technique okay yani researcherka markuu dadkan xulanayay qaab noocee ayuu ku xushayna technique noocee ayuu isticmaalay technique-yada marka la isticmaalayo way badan yihiin horta sida caadiga dad marka la dooranayo laba hab lagu doortaa laba hab ama laba method la isticmaalaya yani researcherka wuxuu isticmaalayaa waxa la yiraahdo probability ama wuxuu isticmaalayaa non probability yani shaygan markaad xulanaysid labadaas xaba u xulan kartaa walaalkayow ama markaad dooranaysid inaad yani probability ahaan inaad wax ku doorato ama aad u xulato ama se inaad markaas isticmaasho non probability wax la yiraahdo waxaan probability ahayn waxaan ihtimaal ahayn inaad markaas isticmaashid waayahay for example probability markaad joogtid oo kale waxaa ka mid ah inaad isticmaashid waxa la yiraahdo random sampling inaad isticmaasho waa method oo methodiyada yani probability-ga dadka lagu xulanayo uu ka mid yahay asaga sidoo kale inaad isticmaashid wax la yiraahdo systematic inaad isticmaasho ama se cluster iyo maxaa la yiraahdaa macnaha cluster sampling okay clusterka inaad isticmaashid iyo wax noocaas wax badan hoos imaanayo waayahay kuwaas oo dhan probability noqonayaan marka ama stratified sampling kamidka la yiraahdo inaad isticmaashid sambalka noocaas ah kaas waa probability Soomaha waxa jiro marka non probability markaad isticmaalaysid waxaad isticmaalaysaa
sida yani babasiif sambalinka oo kale babasiif macnaha dadkan ujeedda ku xulinaysaa tii hadaa ujeedda ma ayna mug probability macnaha ujeedda ma aha dee waa ka wuxuu noqonayaa ihtimaal qiyaas uu noqonayaa okay ihtimaal inaad markaasi waa suuragalnimo waxaan inaan qaato suuragal intee ayuu gaarayaa waa two option okay waayahay ka asaga marka hadalkiisa iyo faahfaahintiisa iyo waa another issue waa baab kale waayahay 3.6 research instrument maxaa la yiraahdaa okay research instrument aa dhigi kartaa waxaa dhigi kartaa research tools aa dhigi kartaa okay macnaha way badan yihiin ama data collection tool ayaad dhihi kartaa data collection tool data collection instrument data collection method intaba waa dhihi kartaa macnaha okay intaba waa dhihi kartaa they are the same isku mid weeyaan waa dhihi kartaa okay marka waxaad u baahan tahay inaad marka toolkii inaad qaadato oo aad diyaarsato questionnaire-kaaga ama questionnaire ha ku ahaado ama markaasi interview ha ku ahaado yani survey-gaaga inaad diyaarsato kadibna dee filliga inaad aado ka waxaa la yiraahdaa research instrument waayahay 3.7 waxaa weeyaan inaad samayso wax la yiraahdo validity test iyo reliability test inaad samayso okay validity and reliability oo loo yaqaano haddii la isku daro waxaaba loo yaqaanaa quality control la yiraahdaa okay yani datadaada ama xogtii aad soo ururisay dee quality-geeda in xogaa yar in la jeeggareeyo okay test yar ayaad u baahan tahay intee boqolkiiba ayay valid tahay intee boqolkiiba ayay markaasi datadaada reliability-geeda in la ogaado marka waxaa la yiraahdaa validity and reliability of instrument ayaa loo yaqaanaa ama waxaa loo yaqaanaa quality control waayahay 3.8 waxaa looga hadlayaa data source yani datada labay u qaybsamaysay sida primary iyo secondary data marka datada isticmaalaysid maxay noqonaysaa ma primary data mase secondary data inaad markaasi cadaysid weeyaan waayahay data analyze waa 3.9 data analyze datadaada markaad analyze garaynaysid maxaad isticmaalaysaa which toolka aad isticmaalaysid waxaad isticmaali kartaa SPSS okay waxaad isticmaali kartaa stata eViews smart BLS Excel okay mana waad isticmaali kartaa dhammaan waxaa la yiraahdaa data analyze tool la yiraahdaa waxyaabaha marka xogtii aad soo aruurisay inaad analyze garayso de marka si aad u bilowdo chapterka afraad resultiga kaaga soo baxaan waxaa la geynayaa chapterka afraad kadibna halkaas ka bilaabaysaa marka interpretationkaaga waayahay 3.10 waxaa looga hadlayaa ethical consideration maxaa la yiraahdaa macnaha researcherka markaan waajibaada fuulayo waajibaad oo marka researcherka laga rabaa jiro oo maxaa waaye marka waajibaadka marka researcherka saaran waxaa weeyaan researcherka waxaa laga rabaa xiligan oo kale inuu ilaaliyo anshaxa iyo asluubta inuu ilaaliyo aadaabtiisa inuu ilaasho okay aadaabtiisa inuu ilaaliyo oo sidee macnaha anshaxa markaad ilaalinaysid waxa kamid ah dadka inaadan ka xadgudbin inaadan dadka dhibaataynaynin filliga markaad joogtid inaadan yani xogta lagu soo siinayo qof walba xogtiisa uu ku siinayaa maaho for example markaad questionnaire ii keentid markaan buuxinayo oo kale yani xogteedaan ku siinayaa background-gayga ku siinayaa ogow ma fahmaysaa kow marka background-ga markuu qofku ku siiyo for example waxaa laga yaabaa qofkan inuu yahay single inuu yahay marka adi macnaa qofkaasi waaba istaqaanin for example hebel waa taqaanaa soo maaha questionnaire-kii aad u geysay questionnaire-ka markaad geysid adoo macnaa isdhehaysay macnaa qofkan ama qof mas'uul ama uu yahay ama uu macnaa xas ama uu leeyahay kadib xogtii markuu kuu soo buuxinayo single uu soo qortay okay single uu kuu soo qoray marka inaadan dhihin yani kan single uu ahaa kan saan uu ahay maloo baan xogta astur okay keep inaad yani xogtaada u isticmaashid
يعني هب آداب له أو هب أكاديمي أو علمي علمي وربتد أو استعمال بس يعني دتك هكون دباتين حجة سوق ده دتك له وشيكين هتصل منك يبلها هنا وحواي مقتى ودو واي وحس عيب واي مرك حس مينن أسر ذات الأستاذ ethical كإلالي آداب تإلالي okay 3.11 limitation of the study يعني limitation of the study محلي هذا challenge السيادة مركا رساجر كلا كل ما يوا okay أنتوا مركا حبتان أرورنا يودن يعني واحد challenge ولا سوق كل أنت مجراه أما challenge هذا لكل مدة محين قناة يعني proposal مركا جوكتين okay مركا dissertation جوكتنا challenge هذا لا سوق كل أنت محيين هي وايح كان وحوها general structure of chapter 3 أما methodology أيوها وايحي هذا مركا وحاد إيمانيسا قيبتان وقيب practical مركا سلحريرتا general requirements proposal مركا قريسد وحيابا اللو باهيها محيين يا requirements كمركا أما أجابية مركز وباهنتاي محي يهين مركا maxaa laga rabaa si aad proposalkan u qorto okay proposalka marka diyaarinaysid waxyaabaha loo baahan yahay waxa kamid ah number 1 thesis should be typed 1.5 space okay yani spaceka line space la yiraahdo line space should be 1.5 hal dhibic 5 inuu ahaado yani spaceka yani maxaa la yiraahdaa lineska يعني line 1 2 3 4 يعني سبيس كو دحيو انه هذا 1.5 واجب ميا 1.5 انه هذا ماي واجب ما استاذ واجب ما جامعadaha qaar waxay leeyihiin laba waa inuu ahaada jaamacadu waxay leedahay 1.5 jaamacad kale waxay ku dhigi kartaa 2.5 jaamacad kale 3 ay ku dhigi kartaa jaamacad marka qoraalka 3 haduu gaaro asagaba waa arki doontaa you test it tijaabo bal ada arka doonay wuxuu noqonayaa line space dheer oo noqonayaa marka buugana qurux ma noqonayo kuleyba waa inta ku haboon labo ama 1.5 way number 2 the font size should be 12 point and hidden should be bold haye markaad qoraysid buugaaga wuxuu ku yiri mar farta aad isticmaalaysid cabirkeedu waa inuu ahaado 12 yani farta yani size-keeda 12 inuu ahaado okay haddana sidoo kale hidden-ka yani cinwaanada waa inay ahaadaan should be bold inay ahaadaan bold maxaa la yiraahdaa xogaa in la balbalaariyo oo xogaa inay soo muuqdaan la arko 3 requirement-iga saddexaad wuxuu leeyahay farta aad ku qoraysid buugaaga proposalka ama thesis-kaaga ama dissertation-kaaga waa inay ahaataa farta nooceeda Times New Roman inay ahaato okay ama inay ahaato Tahoma inay ahaato ama inay ahaato bookman inay ahaato marka saddexdan ayaa ugu badan thesis-ka yani farta la isticmaalayo waa saddexdan midkood ama Times New Roman isticmaalaysa ama Tahoma isticmaali kartaa ama bookman ayaad isticmaali kartaa okay waayahay qodobka afraad marka the left margin qodobka afraad wuxuu tilmaamayaa margins-ka ayuu ka hadlayaa margin maxaa la yiraahdaa margin waxaa la yiraahdaa for example warqadda ayuu ka hadlayaa marka okay wuxuu ka hadlayaa warqadii ayuu ka hadlayaa hadda tan waa warqadii Soomaha waa kan this A4 tan waa A4 marka warqadan ayuu ka hadlayaa for example warqadan waxay leedahay margin 4 dhinac ay leedahay yani 4 edges 4 dhinac bay leedahay 4 sides top and bottom haye right and left marka afartan dhinac ay leedahay warqada marka margin-ka marka laga hadlayo so marka wuxuu leeyahay margin the left margin dhinaca bidixda
warqadda yacni dhinaceeda bidixda should be at least 40 millimeters wuxuu leeyahay inuu yacni dhinaca bidixda ahaado 40 millimeter uu leeyahay. Okay, right side and top and bottom sides margins should be at least 25 millimeters 25 millimeter. Why? meesha marka waxbaa ka soo baxayo, waxbaa ka soo carfayo, ajiib. Wuxuu leeyahay dhinaca leftiga 40 ka dhig, dhinacyada kalena 25 millimeter ka dhig. Wow, why? sababta looga dhigayo dhinaca leftiga 40 maxay tahayna dhinacyada kalena 25 looga dhigayo? haddaba ogow ustaad, waa sax. dhinaca leftiga sababta looga dhigayo buugga markino qayb yar soo dhinaca leftiga soo ma ahan meesha wax loogu xirayo biinanka ay qabanayaan. marka haddii dhinacyada biinanka qabanayaan, haddii marka labada simo oo 25 haddii laga wada dhigo, waxaa laga yaabaa xogaa biinankaasi inay qoraalka qariyaan. marka wax yar banaanka in loo soo baxo waay, marka banaanka in loo bixiyo wax yar, sidaas ayaa looga dhigayaa 40 millimeter. waa yahay qodobka 5 iyo ka 6 waan ka tagaynaa, maxaa yeelay ABI style-ka oo ka hadlayo yani Harvard-ka iyo wax noocaas uu ka hadlayo hadda waa qaybta reference waay ee bibliography-ga weeyaan. marka tan wali ma gaarin, waa hal habeenay qaadanaysaa. okay, waa habeenka 3aad ayuu noqonayaa, ama maalinta 3aad ee seminaarkeen ayaa toos uga hadli doonaa. sidoo kale qodobka 6 similarity index. okay, similarity words oo similarity index waxaa la yiraahdaa plagiarism-ka way soo maaha. marka plagiarism-ka isagana waa 4th night. okay, waa habeenka 4aad ayaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, ama maalinta 4aad ayaa looga hadlayaa. okay, waa yahay marka intaan kadib waxaan imaanaynaa marka qaybta practice-ka. waxaan furanayaa word, ayaan furayaa wordkaasi. markaan furo waxyaabaha markaas la iska rabo iyo wixii shuruudo ahaayeen dhammaan ayaan qorayaa. qaybta practice-ka dhan ayaan qorayaa, anoo markaasi focus-ka saari doono 4 qodob oo ah yani space-ka iyo maxaa la yiraahdaa size of the font iyo type of the font, iyo waxaan ka hadli doonaa margin-ka ayaan ka hadlayaa, iyo yani chapter 1 chapter 2 iyo intaba waa fiirin doonaa haddii Ilaahay idmo. marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay marka qaybta practicada ayaan u gudbayaa, ila socda insha allah. okay, waa yahay aan isla socono qaybta practicada aado. waa yahay waxaan soo furayaa new document. waa yahay hadda marka waxaan noo furan document cusub ayaan furnay, page cusub ayaan furay, ila soco marka. waa yahay markaad qoraysid waxaad leedahay intaadan qoraal iyo waxba bilaabin waxaad samaysaa margin-ka iska sax. warqadan margin-keeda sax, dhinacyadeeda 4teeda wareeg, iska sax warqada. okay, si marka margin-ka u saxno, waxaan u baahanahay inaan aado layout. marka ugu horeyso waxaad aadaa layout, ayaad aadaysaa computerkaaga. layout-ka markaad aado kadib waxaad aadaa margins-ka ayaad aadaysaa. okay, margin-ka markaad aado kadib waxaad aadaysaa custom margin, ayaad aadaysaa custom margin. markaan ku dhuftay hadda dee waxaa soo galay 1 degree, wax yaroo kor ka saaran, yacni waa 1 inch, inja loo yaqaanaa. marka 1 inch, top waa 1 inch, bottom-kana waa 1 inch, right-kana 1 inch, left-gana waa 1 inch. marka hal inch ma loo baahno. dhinaca leftiga hadda anay millimeter wax kugu soo sharxay soo ma. marka waxaan aadi doonaa wordkan oo dhan, hadda injigan waan bedelaynaa, waxaan dooranaynaa marka millimeter ayaan ka soo dhigayaa, ila soco. okay, kan iska xir, waxaad tagtaa file option, file-ka tag, kadibna option dooro. option markaad tagtid kadib dee waxaad soo qaadataa maxaa la yiraahdaa waxaad aadaa advanced markaad ku dhufato then waxaad aadaa advance,
kadib halkan waxaad ka dhex baarbaartaa display meel ay ku qoran tahay display. Okay, display waa kan. kadib halkan inch meesha ay tahay inaan u bedelano wax la yiraahdo millimeter ama centimeter. millimeter aan ka dhigayaa ila soco, millimeter aan doortay hadda, kadib waxaan leeyahay okay. hadda computerka waxaan u sheegnay inuu nooga dhigo meeshii injiga ahayd inuu ku bedelo wax la yiraahdo millimeter. waayo hadda waa millimeter aan fiiriyo margin-ka ayaan aadayaa, kadibna custom margin aan galayaa. hadda fiiri soo ma aragtaan millimeter ama mm. okay, 25 toobka fiiri waa 25 mm. waa yareynayaa marka halkan aan ka dhigo 25 millimeter. okay, dhinaca bottomka hoosana 25 millimeter. haye dhinaca right-kana dhinaca midigta ee warqadda waxaan ka dhigayaa 25 millimeter. haddaba ogow saddexdan dhinac waa ku sharxay, dhinaca toobka iyo bottomka iyo right-kaba waxaa laga rabaan ku dhahay 25 millimeter inay ahaadaan. waayo dhinaca leftigana dee leftiga waxaa laga rabaa inuu noqdo 40. badi marka badi ku dar soco 40 mm. hadda dee waa iska saxnay, afartii dhinac waa saxnay. okay, maadaama afartii dhinac aan wada saxnay dee waxaan aadaynaa marka warqadda ayaan aadaynaa marka halkan paperka ku qoran ayaan aadayaa. maxaa yeelay paperka waxaa laga rabaa A4 inuu ahaado, A4 inay ahaato yani warqadaada. maxaa yeelay haddii hadda paperka haddaan galo kadib waxaan furayaa qaybta letterka ayaan furayaa. okay, letterka haddaan furo, warqadda haddaan furo, halkan fiiri maxaa ku jiro A3 A4 A5 waa kuwan A3 iyo A4 A5. marka adi marka warqadaada A4 ma rabtaa mise A3 ya rabtaa mise A5. buugga thesis-ka inta la ogyahay dee waa A4 aan dooranaynaa marka. okay, A4 inaan ku daawacno waayo soo maha. marka A4 qaado insha Allah. A4 okay, dooro ayada, kadibna waxaad leedahay okay, mac salaam. hadda waxaan iska saxay requirementiga loo baahnay oo ahaa qaybta margin-ka waan ku guuleysan. okay, margin-ka dhinacyada warqadda oo dhan waan saxnay. okay, waayahay. hadda maxaa noo dhiman marka maadaama warqaddii dhinacyadeeda aan saxay inaan wax qoraa laga rabaa marka. okay, inaan wax qoro maxaa yeelay wali maba gaarinba qaybtii oo fartii inay saas ahaato iyo waxba ima qornee dee inaan hadda wax qoro kadib fartii iyo inaan hagaajiyo noqonaysaa marka. waayahay halkan imaaw waxaa leedahay chapter 1. waxaa leedahay chapter 1. chapter 1 maxaa looga hadlayaa? chapter 1 waxaa looga hadlayaa introduction ayaa looga hadlaya. okay, waxaa leedahay introduction waa chapterka koowaad, waxaa la yiraahdaa introduction. waayahay intaas markaad dhahdo kadib dee waxaan u baahannahay marka maadaama chapter 1kii introduction-kii aan qornay contentsyadii ayaan u baahannahay marka looga hadli lahaa. okay, marka halkan ayaan soo qaadanayaa ila soco. waayahay contentsyadeyda waa kuwan marka intaanaan qaadanaynaa waa chapter 1 soo maaha kan intaanaan qaadanaynaa. okay, ila socda marka. waayahay halkan aan imaado. sorry. waayahay control A intaana ii soo qaad. okay, control C soo koobiyey, kadib waxaad imaataa marka halkan imaw waxaad leedahay control V bas ku dheh. waayahay hadda waxaa inoo qoran contentsyadeyna waa kuwan marka waxaa looga hadlayo chapter 1 waxaa looga baahan yahay oo dhan waa kuwan. waxaan ka dhigayaa marka kuwan hidden inaan ka dhigo. okay, hidden inaan iska saxo si aan markaasi u muujiyo inay yihiin yani title iyo subtitle iyo intaba ay yihiin inaan muujiyo weeyaan. ila soco waxaan sameynayaa marka highlight dhamaan, highlight gareey oo dooro dhamaan. markaad dooratid dhamaan
waxaan leedahay home-ka ayaan tagayaa home-ka tag kadib waxaan leedahay marka head 1 ayaan ka dhiganayaa marka okay hadda kuwa hadda headings way soo ma kan waa head 1 okay waayahay head 1 markaan ka dhigo waa kuwan hadda okay space-ka aan u yareeyo wax yar space-ka aan yareeyo space-ka 2 aha okay space-ka 1.5 hadaan ka dhigo de waa kan okay sidoo kale dhinaca leftiga aan geeyo waa kan waayahay hadda waxaan ka dhigay dhammaan heading 1 aan ka dhigay waa kuwan sida aad arkaysaan dhammaan way isbedeleen okay waayahay haddii marka hadda marka headingskan oo ah introduction okay chapter 1 dhammaan waa kuwan okay hadaa rabto maxaa la yiraahdaa kuwan waad iska yareeyay kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa lower case ayaad ka dhigan kartaa okay halkan ku dhufo oo lower case ayaad u bedelin kartaa very good okay marka intaan kadib waxaan sameynaynaa qaybtan waxaa la iska geysaa dhanka centerka la geeyaa qaybtan centerka iska geey okay centerka geynaysaa so marka hadda halkan waxaa inoogu bilaabanayo chapter 1 halkan ayaa noogu bilaabanayo okay chapter 1 halkan ayuu noogu bilaabanayaa waayahay hadda markaan waxaa noo fudud markaad heading 1 markaan ka dhignay kadib hadda markaan waxaa noo fudud inaan daawacno maxaa la yiraahdaa inaan daawacno table of contents kata hadhow macna buuga markaad dhamayso waxa laga rabaa moogtahay table contents inaad diyaarsato marka table of contents hata hadda wuu noo fudud yahay si yani automatic ah ayaan u daabici karnaa okay si automatic ah ayaan u soo saari karnaa table of contents chapter 1 sidee u soo saarnaa marka page cusub aad tagaysaa halkaana imaane kadib waxaad ku dhufataa qaybta referenceska ayaad ku dhufanaysaa referencega markaad ku dhufato kadib waxaad aadaysaa marka meel ay ku qoran tahay table of contents oo dhinaca leftiga ah okay computerkaaga waayahay fiir ila soco waa halkan haddaan ku dhufto maxaa soo baxayo menugan kadib waxaad ku dhufataa marka automatic table 2 haddaan ku dhufto maxaa dhacayo fiiriya ila soco kaliya haddaan siiyo waa la soo daabacay soo ma aragtaan marka table of contents-ka si fudud ayaad u diyaarsan kartaa okay waa kuwan chapter 1 okay introduction background dhammaan waa kuwan marka waa yahay marka iskaga baxo waxaad imaanaysaa halkaan imaa marka introduction halkaan ay imaanaysaa marka qoraalkii aan qorno marka introduction-ka wax yar hadaa idin tuso qaabka loo qoraayo waxaan leenahay this chapter for example waxaan leedahay this chapter will ama presents ama will hadaa qaadato taa waa okay maxaa yeelay proposal ay qoraysaa proposal marka la qorayo future la isticmaalayo soo ma waa ka marka presents that okay ama contains maxaa looga hadlayaa background of the study ama waxaan leenahay haddii de koobigii hore ahayaa control v haddaan dhaho waa kuwan way imaanayaan okay intaan iska bixi intaan iska tir okay numberadaan aan ka tirayaa bis okay kan xagga geey haddaada comma kadibna iska tir numberkan xagga geey comma kadibna halkaan imow kan iska tir isagana kadibna waxaan leedahay comma kan iga tir waxaan leedahay comma okay sidoo kale waxaan tiraynaa 1.4 comma waxaan kadibna iska tirayaa 1.5 waxaan leeyahay marka comma sii soco haye iska tir haye qaybtaan iga tir
waxaan leedahay marka and okay eedaan iga tir kadibna jokes way hadda sida idin muuqato waxaan qornay introduction-kii gaabnaay oo looga hadlayo yani jabtaradan overview-gooda ayaan qoray okay then highlight markaad saartid sidaan oo kale kadib waxaad dooranaysaa hadda imaamar farta maxaa laga rabay wixii oo dhan inaa hagaajiyo Soomaha marka waxaan leeyahay hadda fartaan oo kale Times New Roman way tahay laakiin waxaan imaanayaa body text-gan yar oo introduction-ka ah hadda waa kan waxaan leeyahay farta halkaan aad furaysaa waxaan leedahay Times New Roman ka dhigaysaa farta kadibna waxaad imaanaysaa size of the font size-ka waxaa laga rabay 12 Soomaha 12 okay halkaan noo fur okay 12 dooro is good kadib text alignment-ga imaanaysaa waa qayb aad muhiim u ah text alignment-ga hadda noo dooran waa left-ga ayaa noo dooran kan waa center-ka weeyaan kan haddaan saan click haddaan siiyo qoraalkii oo dhan dhinaca center-ka ayuu soo aadayaa okay haddii marka kan haddaan doorto yani right-ka haddaan dhaho dhinaca right-ka ayay wada aadayaan dhammaan marka sidaa daraadeed waxaa la qaataa marka justify ama control J dheh ama justify-ga ku dhufo okay justify markaan dhahno it's very good hadda now qaab dhismeedka inaad fahanteen aan rajaynayaa jabtarka koowaad qaab dhismeedkiisa okay hadda waxa noo qoran waa kan sida aad arkaysaan waa introduction-kii okay wax yar hadda idin tuso background-ga oo kale marka la diyaarinayo de background-ga waxa laga hadlayo waxa weeyaan ilaa iyo laba habaa loo diyaari karaa background-ga habka koowaad oo yani 4 content inaan keeno ama 4 qaybood inaan uga hadlo background-ga gudihiis oo ay ka mid yihiin waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa inaan keeno historical perspective inaan ka bilaabo kadibna aan ku xijiyo maxay ahayd ii sheeg theoretical perspective kadibna aan ku xijiyo maxaa la yiraahdaa conceptual perspective kadibna contextual perspective marka afartaas hab ama afartaas qaybood ayaa looga hadlayaa background-ga haddii nidaamkan hadaa marto okay haddii kale waxaad samayn kartaa yani qaab history ahaan ayaad u samayn kartaayo adoo isticmaalayo yani global history inaad qaadato kadibna regionalka inaad ku xijiso kadibna inaad ku xijiso wax la yiraahdo maxay ahayd inaad ku xijiso يعني nationality in the world in Somalia inaad ku xijiso okay your nationality يعني nationality ama waxa loo yaqaano yani contextual kaaga inaad ku xijiso inaad qortid okay way hadaba marka background-ga waxa laga rabaa inaad ku bilowdo sida yani global globally inaad dhahdo in Africa history raadinaysid in Africa Somalia waaye background-ga marka saddexdan ayaa looga hadlayaa waa qaybta dambe aan ku sharxay weeyaan inaad ka hadasho yani global history inaad ka hadasho kadibna regional history oo in Africa ah kadibna inaad ku xijisid in Somalia waaye inta kadib marka يعني history inaad raadisid oo global history inaad raadiso kadibna Africa in Somalia dhamaan yani history-good inaad raadiso marka intaan qaybood ayaa looga hadlayaa sidoo kale qaybta u dambayso waxa weeyaan case study-ga weeyaan case study-ga waa halka daraasadda yani aad ka soo qaadanaysid meesha u dambayso weeyaan marka background-ga marka laga hadlaayo waa inuu ahaadaa yani qaab oo funnel waxa la yiraahdaa sida dublada oo kale yani kore inay u weynaato meesha dhexe inay u yaraato salka hoose inuu u yaraado meesha u dambaysana inuu yani fiiqi dhuuban oo yar inuu ahaado background-ga
sida yani saddex xagalka oo kale ama sida dublada oo kale marka global markaan ka hadlaayo waa qaybta u weyn ogow dublada okay in Africa markaan leeyahay waa qaybta dhexe ogow in Soomaaliya waa meesha tubada oo kale u ego dhuuban meesha u dambeysana waa case study-ga inaad ka hadasho okay waaye for example hadda motivation-ka oo kale tusaale haddaan u soo qaato globalka sidee ayay wax u dhiirigelinayaan fahmaysaa globalka sidee ayay wax u dhiirigelinayaan haddii climate change-ga haddaan ka hadlaayo caalamka ka waran climate change-ga dhacayo haye waa sidee Afrikana waa sidee in Soomaaliyana waa sidee case study-ga aad ku nooshahayna waa sidee waa district-ga markaas wax ka raadinaysid waaye waxaad imaataa problem statement-ga marka problem statement-ga markaan joogno problem statement-ga markaad joogtid waxaa looga hadlayaa sidoo kale saddex qaybood saddexda qaybood maxay yihiin kow waa ideal situation labo waxa weeyaan current situation la yiraahdaa qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa gap la yiraahdaa gap way gap ayaa la yiraahdaa waayahay aan ku qoro ideal situation ayaa looga hadlayaa kow labo waxa looga hadlayaa current situation looga hadlayaa current situation okay current situation la yiraahdaa saddex waxa looga hadlayaa gapka markaas jiro ideal situation maxaa la yiraahdaa ideal situation waxaa la yiraahdaa isku xirka IV-ga iyo DV-ga the relationship between IV and DV okay qaybta saddexaad waxaa la yiraahdaa waliba ideal situation markaad ka hadlaysid waxaa looga hadlayaa si general ahaan looga hadlayaa okay waxa ku xigo current situation ayaa ku xigto current situation maxaa la yiraahdaa ama current problem yani problemka markaasi taagan inaad kaga hadasho qaybtan okay waxa la yiraahdaa current situation ayaa la yiraahdaa sidoo kale causes of that problemkaasi waxa sababayna inaad ka hadasho okay problem noocan jiro waxaana sababay kana sabab okay horta waxaad ogaanaysaa marka laga hadlaayo topiga doorashadiisa marka laga hadlaayo de qaybta koowaad waa IV Soma IV-ga sidiisuba muxuu noqonayaa IV-ga waa cause waa midka sababayo problemku waa problemku waa DV-ga Soma aha okay marka hadda halkan markaad joogtid yani problemkii aad sheegaysaa dhibaatadii yani DV-ga ka hadlaysaa waxaan dhibaato noocan jirto okay adoo markaasi DV-gaaga ka hadlaayo waayahay markaas waxaad leedahay marka problemka oo kan waxaa sababay IV-gayga ayaa sababay oo kan hadda ma fahmaysaa waayahay gap maxaa la yiraahdaa gap waxaa la yiraahdaa gaababka markaas jiraan ama output la yiraahdaa ama resultna waa la yiraahdaa okay yani gaababkaas inaad sheegtid iyo waxa aad rabtid inaad samaysid ama waxa aad xalinaysid inaad ku dabaqdo ka ayaa waxa la yiraahdaa gap waxaad imaataa marka research objectives markaad qoraysid haddaba ogow objectiveyada waxay u qaybsamaan labo ayay u qaybsamayaan oo ah general objective ama main objective okay general objectives general objective iyo waxay u qaybsamayaan specific objectives general objective iyo specific objectives ay u qaybsamayaan marka kan ogow contextkan yar wuxuu noqonayaa subtitle-kan wuxuu noqonayaa 1.3.1 ayuu noqonayaa ogow okay kanna muxuu noqonayaa marka kan wuxuu noqonayaa asagana 1.3.2 ayuu noqonayaa maxaa yeelay qaybtan ayay hoos imaanayaan marka sidaa daraadeed qaybahan waxaad ka dhiganaysaa ayagana
hidden 2 ayaa dooranaysaa ustaad waxaa laga dhigayaa hidden 2 ayaa laga dhigayaa ilaan kan waxa weeyaan hid 1 way soo kan marka hid 2 waa ka dhiganaysaa okay kadibna waa inaad ka hadashaa marka ujeedadaada guud okay ujeedadaada guud ayaad ka hadlaysaa okay waaye ujeedada guud maxay noqonaysaa marka ujeedada guud markaad qoraysid tusaale ahaan waxaa leedahay haddaan ku tuso the general objective of the study is to markaad dhahdo inaad sii wado waayo marka tobigaagaa keenaysaa bis adoo isdhibinbo okay is to analyze is to determine is to waxaa leedahay investigate inaad sheegto yani helping statements la yiraahdaa investigate okay the impact of climate change okay on environment on environment okay at ama in Somalia ama in Mogadishu adi marka inaad qortid case study-ga joogso marka okay hadda marka waxaan qornay waa ujeedadii ayaan qoray ogow okay ujeedadaydu waxa weeyaan ujeedadaydu waa tan waxaan dhahnay the general objective of the study is to fahmaysaa is to okay the general objectives ma aha waxa weeyaan the general objective of the study is to waka kadib maxaa leedahay head 1 ka dhiganaysaa waxa ka dhigaysaa Times New Roman kadib waxa ka dhigaysaa 12 farta okay kadibna justify aad ka dhiganaysaa very good waka marka kani wuxuu ahaa marka qaab dhismeedka chapterka koobaad okay kan waa qaab dhismeedka chapterka koobaad weeyaan sidaan inaad u dhistid de kan specific objective-yadan marka diyaarinaysid de marna waxay noqonayaan saddex haba loo diyaariyaa oo ah yaani inaad qaadatid general format inaad qaadato general format iyo inaad isticmaashid maxaa la yiraahdaa many to one format iyo one to many format okay kan waa qaab dhismeedka chapter 1 chapter 2 gina qaab dhismeedkiisa sidaan oo noqonayaa chapterka saddexaadna qaab dhismeedkiisa sidaan oo kale noqonayaan marka sidaas daraadeed hadda waxaan sameynaynaa marka proposal ayaan furo doonaa oo diyaarsan si aan u hubino intaba okay hadda kan hadaan furo proposal kan fiiri okay chapter 1 intaana looga hadlayay okay overview ga hadaan furo fiiri ama overview ama waxaad dhihi kartaa introduction hadda overview waa kuwan waa intii hadda aan soo sheegay waa kan waa background-ga hadda idin tusana de waa kan qaybta koowaad global ayaa looga hadlay sii soco waa global oo history ah qaybta kale waa kan Africa ayaa looga hadlay in Africa inaad qaadatid qaybta saddexaadna waxa weeyaan in Somalia sida aad arkaysaan okay qaybta kale waxa weeyaan problem statement la yiraahdaa qaybta ugu horeyso waxa la yiraahdaa ideal situation oo isku xirka IV-ga iyo DV-ga qaybta kale waa current situation la yiraahdaa qaybta kalena waa gap resulting meesha ka bilaabanayo okay haddaan fiirino babas ama ujeedada haddaan fiirino waa kan ujeedada koowaad okay research objectives waxay u qaybsamayaan general objective iyo waxay u qaybsamayaan aan ku dhahay specific objective waa kuwan ayagana okay haddaan aragno yani questionska waa kuwan questionska waxay ka imaanayaan specific objective-yada ay ka imaanayaan waxaa loo bedelayaa qaab su'aaleed waxaa laga dhigayaa qaab su'aaleed ayaa laga dhiganayaa bis waayahay scope markaad fiirisid saddex u qaybsamayaa general scope yani inaad ka hadasho yani geographical scope inaad ka hadasho time-ka ama waqtiga yani scope-kaaga uu dhamaanayo ama ku eg yahay iyo inaad ka hadasho wax la yiraahdo content scope-kaaga inaadan ka dhexbixaynin specific objective-yadaada inaad sheegtid kan waxa weeyaan marka significance dadka ka faa'iideysanayo weeyaan iyo waxaa noo qoran operational definition-ada inaan qeexo yani operationada ama keywords-ka kadibna de kan waxa weeyaan conceptual framework weeyaan
okay conceptual framework sida aad u qoraysaa waayahay haddaan fiirino chapter 2 waa literature review wuxuu ka hadlayaa marka hore introduction-kii ayuu ka hadlayaa waa kan marka labaad wuxuu ka hadlayaa concept of computerized accounting qoran waa kan IV-ga weeyaan kan waxa weeyaan marka DV-ga ayuu ka hadlayaa okay DV-gana waa kan sida aad arkaysaan waayahay inta kale saddexdan waa objective-yadii hadda aad soo aragteen weeyaan objective-yada waa kuwan objective-ka laga hadlay kadib waxaa laga hadlay objective 2 waa laga hadlay kadibna waxaa laga hadlay waxa uu baarbaarayo objective-ka saddexaad ayuu ka hadlay kadibna de wuxuu ka hadlayaa chapter summary ayuu ka hadlayaa oo chapterka oo dhan ayuu soo khulaasaynayaa okay haddii marka chapterka saddexaad hadaa aadno asaga waxa weeyaan methodology weeyaan okay wuxuu ka hadlayaa 3.0 oo introduction ah okay qaybta kale oo ah research design qaybta kale wuxuu ka hadlayaa target population ayuu ka hadlayaa qaybta kale waxa weeyaan sample size-kii waa kan sida aad arkaysaan iyo formulooyinka la isticmaalayo iyo yani table-kan sida loo soo geliyay okay sidoo kale sample technique yani random sample ayuu isticmaalayaa hada kan randomka ayuu xooga saaray sidoo kale data source markaad fiirisidna the primary data ayuu isticmaalayaa buugan sidoo kale data collection tool-kana waa kan questionnaire uu isticmaalayaa quality control wuxuu isticmaalayaa validity iyo reliability waa kan waa kuwii hadda aan sharxnay data collection tool-ka yani procedure-ka uu isticmaali doono waa introductory letter inuu haysto iyo qaab dhismeedka markaasi xogta u soo aroorinayo weeyaan yani data analysis waa kan SBS ayuu isticmaalayaa ethical consideration-kana sidaan ayaa loo diyaarinayaa walaal sida aad arkaysaan qaybta kale waa limitation of the study maxaa la yiraahdaa qaybtan waa qaybta reference weeyaan reference-gana waa kan sidaan ayaa loo diyaarinayaa marka references loo diyaariyaa taas waa next day waay hadda kan yani habeenka maalinta saddexaad ayay noqonaysaa haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala qaab dhismeedkii yani proposalka dhammaan waa aragnay hadda wax noo harsan ma jiro questionnaire-kina waa ayadana waa gaari doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu